السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كمركز سود وواضح أدي هذا ومحسنتين. إذا ماذا آيس أي واحد أي هول ka wadaan saddexda gobol ee Mareykanka oo Soomaalida ugu badan ay degan yihiin. Waa inagii ogeyn in magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis toddobaadkii saddexaad ciidamada ICE howlgallo ay leeyihiin dadka dambiilayaasha iyo kuwa sharci darrada ayaan ku qabqabanayna inay ka wadeen 4 maalmood ka hor magaalada Columbus, Ohio oo ah magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan ay degan yihiin wadankan Mareykanka in 4 maalmood ka hor howlgal waliba mid bartilmaameed ah oo dadka guryahooda loogu tagayo in ay ka bilaabeen iyo waliba goobahooda ganacsiga. waxaan sidoo kale arintaasi wax ka weydiiyay Maxamed Faarax oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa. sidoo kalena waxaa jira wiil Soomaaliyeed oo isaguna wadanka sharci darro ku soo galay oo walaalkii oo soo damiintay shalay gurigiisa inta la tagay oo la weydiiyay sawirkiisa iyo magaciisa iyadoo la wato la geeyay ama ciidamada ICE ay tageen isla markaana walaalkii ay weydiiyeen ay yiraahdeen ninkan ayaan raadinaynaa isaguna uu yiri ma garanayo maadaama uu isagu soo damiintay laakiin ciidamo ilaa iyo 12 oo ICE ayaa gurigiisa tagay isagana waan wareystay. marka wareysiyadaas si kala duwan ayaan muuqaalkan aan idinku la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada. Wareysiyada waxaan ku hormarinayaa wiilka wadanka isagu sharci darrada ku soo galay oo shalay guriga walaalkii ciidamada ICE iyagoo raadinaya ay tageen sawirkiisa magaciisana iyagoo wato. Cabdikariin ayaa la yiraahdaa. Cabdikariin ayaan wareysiga ku hormarinayaa waana kan Cabdikariin oo aan wax ka weydiiyay bal sida shalay wax u dhaceen markii guriga walaalkii la tagay iyadoo la raadinayo. cilmi waa ku salaama marka hore waa shalay subaxii abaari markay eedneen 9 subaxnimo waxa ay soo wacay yar ila dhashay oo magaalada dhinaca ka degan Nashville, Tennessee. waa gartay. wuxuu ii sheegay in la raadinayo asaga loo imaaday oo ayagoo wataan sawirkayga ee dhahayaan ninkaan u baahanahay iyo magaceygaba wataan. magacaado saddexan iyo sawirkaaday wateen maxay dhamaayeen marka ciidamada ICE oo guriga walaalka tagay? والله جوارد الباب كهرسوس تاجي وحين 6 ميل 6 ay u kala taagnaayeen 3 ragana 12 gaarayeen jawaarid saarnaa. marka albaabka markii ay garaaceen oo laga furay maxay weydiiyeen yaasa ka furay? marka hore waa qof kala ka furay laakiin asaa loo soo kacay oo uu maaday wuxuu dhaa maxaa rabtiin markaas waxay dhaheen qofkaan sawirkiisa tuseen qofkaana u baahanaa Cabdikariin marka wuxuu dhaa Cabdikariin gurigaan ma degno mana aqaano marka asigii waxay dhaheen qofkaan ama adi tahay. waa gartay. inkastoo walaalna aan isku eegnaa marka waxay dhaheen qofkaan adi ama taamihii oo dhaho sharcigiisa wixii soo tusay marka waa ka tageen adi. marka adiguna addresskaas kuma qornay laakiin walaalka isaga ayaa ku soo damiintay miya markii wadanka aad soo galaysay? asaga ay soo damiinto guri kale oo degnay address noo wada ahay laakiin ma degnino xaafad kale aan iska degnaa oo qaraabada leh. waa gartay. marka adigu goorma wadanka soo gashay? ani 2021 soo galay March bisha 3 2021. waa gartay. marka maxkamad iyo wax ma martay kiiskaadu xaguu maraya? maxkamad waxaa maray isla meeshii inaan soo baxo horta waa ii diideen hataa adiga bond inaan ku soo baxo waa ii diideen oo lawyer Cabdiwaahid la Minneapolis loo qabsaday boonkii diideen abiil oo ii qaaday abiilkii hadana soo diideen bond inaan ku soo baxo. markii dambe maxkamadii meesha iskaga maray July markay ahayd 23 oo maxkamadda finalka individual court-ka. waa gartay. adiga 3 saac maxkamadda socod dood dheer kadib waxay dhaheen adiga kiiskaaga waa ku qanacna laakiin macnaha granted ma ku dhihi karno. waa gartay. ogolaasho kuma siin karno asylum kuma siin karno. waa gartay. maska laabane mase abiila qaadane haye marka abiila qaadanaan dhahay sidii marka abiil u qaadanaa hadane haye abiilkii lawyerkii xareeyay welina meesha ku jira detentionka meel Fort Worth lahayo Texas ka tirsan ayaa markaas ku jirta. imisa xirneed marka oo xabsi ku jirta intaan lagu soo daray? 2 bilood miya? 7 bilood. waa gartay. oo marka hore California ka soo gal laakiin meelaha dadka la geeyayo buuxeen waxaa lii xawilay Texas lii xawilay anagoo badan. waa gartay. marka waxaa ii soo dirtay in qoraal maxkamaddu 22kii aan iraahday sanadkii 2022 in reject lagu siiyay ma sidaas ah? 2021 July diidma liisii maxkamadda caadiga abiilka waa marka hadana waxa liisinaa BIA code Board of Immigration Appeal. waa gartay. ayadana waxay iga soo daba direen anoo Nashville joogo
ismiis waxaa la dhahayo macnaha keiskii inay laabeen waa gartay haddana sidii waxaan sii xareeyey maxkamad kale oo Fifth Circuit Law ku taalo Louisiana maxkamadda racfaanka tii idan haddana diidmo kale iga soo daba dirtay waa gartay adiga TBS oo lawyerka ii xareeyey TBS-kina waa waxyaaba ii dirdireen adiga sanad ka bacdi haddana waxay soo dhaheen waddanka weli ma joogtaa waan joogaa caddeyn maxaa caddeema waxaan kasoo diyaarsaday Somali community masaajidka mayorka magaalada oo yar Soomaali la shaqeynaayo oo warqad caddeyn inaa macnaha magaalada joogo iyo yarkii la dhasho warqad samay inaa asaga la noolahay oo wax kasto si profit gareenayo waa gartay marka ma la dhihi karaa waraaqdaasi uu ku qoray darteed ayaa asaga maadaama uu yahay qof waddanka sharci ku leh oo markuu guurana la ogaan karo sidaas darteed ayaa lagu soo raadiyo hadda waxay rabeen inay ku qabtaan iyo ku masaafuriyaan saasna waa la dhihi karaa labo waxaa la dhihi karaa oo kale aniga tikidaba ii goonaa marka hore oo isbuuc ka hor aan goosto oo xamar inaan ka degaanaa warrabo oo baasboor Soomaaliya haystay January 16 Chicago to Ethiopia to xamar tikid aan goostay marka ma self deport isku sameey rabto adiga ma iska isku masaafuri rabay aniga kaliya raba inaan musaafuriyo waayo aabkii waxaas dhaama lagu xiraaho dad kale lagu la raadiyaa waqti laga lumiya haddana waayo dhalinyaro badan oo Louisiana ku xirana macnaha wada xiriirna oo ii sheegay in 8 bil dadka qaar la celiyo wala celiyeen oo 8 bilood ay ku qaadanayso xabsi 8 bilood ay ku jiraan ilaa hadda celisna rabaan hadda maxaa ku qorshaysan marka qorshay waa aniga markasta waa inaan laabto waa qorshay 5 sano jooga marka inaan laabto aniga qorshay ahayd laakiin hadda waqtigan kula hadlayo Nashville Tennessee waa ka soo tago lawyerka inaan la tashto oo sii socdaa Minneapolis Illinois si maraya waata marka wuxuu kugula taliyo talada lawyerkaada qareenkaada rabtaa inaad qaadato si fiican wuxuu igula taliyo markaas ilaa si nadiif oo liiqashadaadin shalay yarka walaalkii waa lawyerka saas dhacdo dhahay marka lawyerkana adiga wuxuu dhahay waa in aan ka wada tashanaa magaaladana warar waxaan ka maqlaay oo TSA-da in lagu amrayo xataa qofka baxay in ay isu soo gudbiyaan oo soo sheegaan waa wada shaqeeyaan airportadu waa federaal marka TSA-di baad airport ugu qabanayso marka waxaas dhaha ku degdegina ayadana ilaa la tashi badan inaa sameysaa waa self deportigan ku sheegaya horta wax dhibaato ma lahan waa run inta badan waa laga yaabaa in qofku hadda self deport abka markuu isku sameynayo lama xirayo qofku abkaasuu buuxinayaa informationkiisa markuu buuxiyo kadib asaga dooranaya waqtiga uu baxayo waa airportka lagu hubinayaa inuu ka baxay tikidkana waa loo jarayaa diyaarad ayaa la saaraya laakiin waxaan kula talinayaa xitaa inaad sidaas samayso haddii intii aad kaliga iska bixi lahayd haddii aad kaliga inaad baxdo aad go'aansato waa markaasi marka lagu qabanayo laakiin haddii aad ice marto oo tiraado aniga ayaa ismasaafurinaya wasaaradda amniga gudaha ay ka war hayso waxaan filayaa markaasi inay ku fududaanayso oo ay ka fududahay in adigu kaliga aad tiraado waan baxayaa adigoona dawladda ogeysiinin daas waa hadda uu socdaba lawyerka waayo 5 sano wax badan oo iga caawiyo lawyerka Cabdiwaahid marka daas waa asaga la tashi badan uu la sameeyay mid kale shalay dhalinyaro kale oo ay soo waceena jireen magaaladeena oo guriga lagu gargaraacay yar albaabka ka furaa jiray magaciisa waxay dhaheen Saciid raadinona laakiin asaga wuxuu u sheegay in aan Saciid la dhihin oo Maxamed la dhaho yar kalena adii waa soo waceen oo balan ay u dhigeen oo inuu u imaado laakiin balanti muusan tagin waxaan maqlay xitaa dad intay balamiyeen balanti markay tageen qabteen oo xireen waa magaaladeena oo balan u dhigeen jirto maalin oo balan laha waa tagi balanti markuu tagay haddana waxay dhaheen biri meel hebel balan ku leedahay maalintii labaad markuu tagana waa xireen magaalo oo Cooksville wuxuu ku xirnaa 3 maalin kadibna Louisiana u gudbiyeen oo hadda Louisiana uu ku xiran yahay waa tahay Cabdikariin aad iyo aad u mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaya waraysiga dhinaca kale magaalada Columbus Ohio oo magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ay degan yihiin ciidamada ICE ayaa waxa ay howlgal ka bilaabeen Arbacadii la soo dhaafay maalintii afraad ayay howlgal ka wadaan howlgalkan waa mid targeted ah oo dadka sawiradooda iyo magacyadooda ay wataan iyo adreesyadooda mararka qaarna waliba taleefanadooda dadkaasi la tracking gareynayo oo halka ay joogaan loogu tagi karo dad Soomaali ah ayaa la qabtay marka bulshada Soomaalidana qalqal weyn ayaa ka jira haddaba Maxamed Faarax oo isagu arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa kuna sugan magaalada Columbus Ohio ayaan wax ka weydiiyay bal howlgalkan ilaa iyo hadda haddii ay jiraan dad Soomaali ah gaar ahaan dhalinyarada waddanka sharci darrada ku soo gashay oo la qabtay bal Maxamed
warbixin kooban bal naga sii Columbus Ohio maxaa ka jira ilaa iyo hadda ilaa iyo 4 maalmood ee la soo dhaafay cilmi walaal aad iyo aad u mahadsan tahay ICE maalintii Arbacada ayay nagu bilaabeen inay Columbus operation ka bilaabaan maanta ku afar ayay wadaan waxaad u malaysaa in dadka ay u diiwaan gelisan yihiin ee list wataan dadka guryaha degan yihiin ay tagayeen xaafadaha Soomaalida ganacsatada Soomaalida meelaha joogaan iyo dadka meesha u badan yihiin iyo masaajidada marka dadkay qabanayaan kaliya darbi kabood ma ahan waxay kaloo ku darayaan dad Soomaaliya oo green card haysto oo sharciga ka halaabay ayadana way ku dareen hal wiil ayaan haynaa halkaas case laakiin dadka badan soo faaray qabteen waxay u badan yihiin dhalinyarada darbi kaboodka marka dhalinyaradaasi la qabtay wax tira oo ka haysa ma jirta hadda 4 maalmood ee la soo dhaafay aniga iyo dhowr dhalinyaro oo community u dhaqaaqo waxaan aruurinay maalmahan 4 la soo dhaafay aruurinay xogta meeqa qof tiradan hadda heeno soo faar waa ilaa 18 qof oo dadkooda intana soo wacay dhahay ana qof baa laga qabtay marka 18 ayaan maanta oo sabti aan heena maxamed marka dadka guryahooda ma loogu tagayaa goobaha shaqada ma loogu tagayaa wadada dadka maraya ma la istaajinayaa howlgalku waa sidee guryahooda loogu tagayaa xaafadaha Soomaalida ee degan yihiin banaankooda barkin dhiganayaan jidadka Soomaalida u badan sida Morris iyo Cleveland iyo Ennis goobaha ganacsiga Soomaalida loogu tagayaa xataa masaajidka shalay masaajid salaad subax wiil u lugeynay oo xaafadiisa masaajidka ka soo horjeeda deganaa asoo lugeynay ay istaajiyeen waxaana u muuqataa inay tracking ku sameeyeen telefonkiisa tracking waxay kaloo ku subinayaan pilotiyaasha gaariga marka meel walba loogama baxsanayo meel moolasha waaweyn way tageen mool Soomaaliya tageen Morris shopping center shalay oo Morris ku yaalo baarka ka dhigteen ninkii lahaa ayaa u wacay booliiska wuxuu ku yiri maraba dadkan haliga kaxeeyo waan laga buriyay marka meel looga baxsanayo magaalada Columbus meel walba taagan yihiin westiga north south ka maxamed maayarka magaalada Columbus Ohio oo dimuqraadiya waa uu ka hadlay waan arkayay bal bulshadiina Soomaalida maadaama aad adigu arrimaha bulshada dadka u dhaqaaqay oo dhalinyarada aad kamid tahay Soomaalidu ma isku timid arintan ma ka hadleen sidee wax looga qabanayaa ma jireen wax kulan oo dhacay xalay waxa arkayay hotelka ay degan yihiin ciidamada ICE in la tagay oo hoonka lagu yeerinayo lagu buuqayay sida ay Minnesota ka dhacaysa iyo gobollo kale marka bulshadu maxaa dhaqdhaqaaqay wada horta bulshada waa Allah qarasiga qaar kood dhaqdhaqaaq way wadaan laakiin sida Minneapolis oo kale wali ma nihin oo aad u baahan weyn sida fiican ay isku abaabuleen laakiin kulan waa dhacay isla habeenkii Arbacadaba khamiistiiba waa dhacay kulan oo xildhibaan Ismaaciil iyo Muniire iyo madaxda xildhibaanada qabanqaabada horta qabteen kula hadleen jaaliyadda warbaahinta iyo dadka u olay xuquuqul insaanka sidoo kale shalay jaaliyadda waxay tageen shir looga wacay magaalada Columbus oo maayarka Andrew Ginther u wacay gudoomiye Xasan Cumar ka qayb galay asagana iyo activistiyaal Soomaaliya marka waa jira kulamo noocaas oo kala laakiin waxa xusid mudan maayarka iyo police chiefka waxay lama shaqeynayno ICE operation ko ee Columbus ka qabanayna ma hor istaagi karno wax kama qaban karno waa hay'ad federaal oo xaq u leh waxay qabanaysaa inay qabato laakiin waxay lama shaqeynayno resource ma siinayno mana caawinayno maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay maxamed faarax oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa Columbus Ohio ku sugan igana warbixinayay howlgallada ciidamada ICE ay maalintii afraad ka wadaan magaalada Columbus Ohio ee gobolkaasi waa gobolka labaad oo Soomaalida ugu badan ay degan tahay waa mahadsan tahay maxamed dhinaca kale magaalada Minneapolis maanta waxaa ka dhacay mudaharaad aad u ballaaran kaasi oo qaybaha kala duwan ee dadka jinsiyadaha kala duwan leh ee degan magaalada Minneapolis ay ka soo qayb galeen xitaa dadka wadankan loogu yimid ee indigenous ka yiraahdo oo asal ahaan Mareykanka loogu yimid oo dharkooda hidaha iyo dhaqanka ku lebisan ayaa ka qayb galay halku dhigyo fara badan ayay wateen oo ay kamid ahaayeen
Soomaalidu waxay Minnesota ka dhigeen mid wanaagsan. Somalis make Minneapolis great. Halku dhigii Trump oo ahaa make America great again ayay ka soo qaateen. Sidoo kalena waxaa jirtay in dadkaasi ay lug ku mareen wadada Lake Street oo ganacsiyada ugu badan ee Soomaalida ay ku yaalaan. Bloomington ayaa laga soo bilaabay ilaa iyo waxa lagu tagay suuqa Carmelo oo suuqa ugu weyn oo Soomaalidu ay ku leedahay Minneapolis. Haddaba arrintaasi waxaan wax ka weydiiyay Liban Show oo ka mid ahaa wariyaashii duubayay lana socday dadka mudaharaadkaasi sameynayay. Liban marka hore waxaan weydiiyay mudaharaadkan yaa soo qaban qaabiyay halkuusa ka soo bilowday halkuusa ku dhamaaday. Waa kan Liban oo wareysigaasi aan la yeeshay. waad mahadsan tahay cilmi mudaharaadkan waxaa soo qaban qaabiyey sida aan wararka aan ku helay hay'ado kala duwan oo runtii u shaqeeya qaxootiga waxaana isugu soo baxay dadyow lagu qiyaaso kumanaan iyo boqolaalba ayaa isugu soo baxay ujeedada runtii mudaharaadkan waxa uu salka ku hayay sida aad la socotid ICE oo baryahan dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota si jaaliyadda Soomaalida ay target ugu haysay si ayaguna garab istaag loo siiyo borar ay wateen dadka mudaharaadayay ayaa waxaa ku qornaa ICE waa inay ka baxaan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota mudaharaadkii lug ahaa iyadoo run ahaantii weatherka magaalada Minneapolis aad qabow iyo dabeelo ay u jireen ayaa dadku ma aysan ka leexan wadada Lake Bloomington ilaa meesha suuqa Soomaalida run ahaantii waad garanaysaa cilmiyow waa masaafo aad u dheer oo runtii ay qaadatay 2 saacadood lug ah dadku qabowgaasi ayay ku lugeynayeen waxaana lagu soo dhameeyay mudaharaadkii suuqa Soomaalida ee Carmel. waxaan arkayay halku dhigyada ay dadku wateen waliba qaybaha kala duwan isugu jira xitaa dadka wadankan loogu yimid oo indigenous ka la yiraahdo xitaa dharkii dhaqankooda iyagoo ku libisan ay wateen in halku dhigyada ay kamid ahaayeen Somalis make Minneapolis great oo Minneapolis Soomaalidu mid wanaagsan ay ka dhigeen markii la tagay suuqa Carmel oo dadkii halkaasi ay isugu tageen sidee bulshada oo Carmel ku ganacsata ay dadkaasi ICE inay ka baxdo Minneapolis ku mudaharaadaya Soomaalidana ku taageeraya ay u soo dhaweeyeen dadka mudaharaadka sameynay run ahaantii goobta markii la soo gaaray ilbaabka afaafka hore suuqa Soomaalida ee Carmel Mall ayaa waxaa soo buuxiya dhaafay ganacsatadii jaaliyadii ayagoo runtii borar iyo calamo iyo calanka Soomaaliya xataa ay wateen ayaa soo dhaweeyay dadyowgii farax badnaa halkaasi mudaharaadku ku yimid ilbaabka ayaa loo wada furay gudaha ayay soo galeen maadaama ayagu aad u soo qaboobeen isla markiiba waxay kala hor yimaadeen mid walba shaah inay mataqaana ay gacanta u geliyaan kuleel badan marka dadku aad bay runtii ugu faraxsanaayeen ganacsigii Soomaalida waxaad moodaa in maanta zaxmo u ahaa waxaana zaxmo ka dhigay dadyowga deriska ah ka soo qayb galay mudaharaadkani qaar aan weydiiyey cilmi ayaa ii sheegay siday ugu faraxsan yihiin iyo weliba qaar ii sheegay inay moolkan markii ugu horeysay ay yimaadaan oo ay ii sheegeen inay Soomaalidu ay jecel yihiin oo ay dad fiican ay yihiin raashinkooduna aan jecelnahay waana garab istaagaynaa sababta maanta halka aan ugu soo ekaysinay mudaharaadkeeni inaan Soomaalida ganacsigooda uusan xirmi karin oo runtii aan u noqono gaashaan si ay dukaamadooda iyo ganacsigooduna ay hore u furtaan sambuuskiina ma lagu soo dhaweeyay dadka cadaanka sambuus ayaa lagu soo dhaweeyay waxaan arkayay hooyo runtii maqaayad ku leh meeshaasi ayaa waxay u diyaarisay saxuun ay ku soo gurtay bariis iyo chicken kuleelka badan dadkan runtii ayagu waxay ma filaynin run ahaantii lama filaankan oo raashin freega ah iyo sambuuska iyo shaaga laga hor keenayo laakiin waxay ayagu rabeen inay ayagu iibsadaan laakiin Soomaalidiba ayaa u garatay in maaragtay ay free ay ku siiyaan raashinkii sambuuskii runtii aad bayna runtii ula dhaceen
dad yowga Soomaalida aan ahayn maanta ku sugnaa suuqa Soomaalida runtii dhinaca kale markaad ka fiirisid maanta toddobaadadii la soo dhaafay sida la socotay cilmiyow suuqa Soomaalidu iska dansanaa laakiin maanta meel kale istaaga ma lahayn idaacadaha meeshay buuxeen dhalinyarada runtii meelo badan ayaa la furay goobihii timajariyaasha meel walba maanta dib ayaa loo furay ganacsiguna si xad dhaaf ayuu ahaa aad iyo aad u mahadsantahay Liban waan kaaga mahad celinayaa kaas waxa uu ahaa Liban oo Liban show caan ku ah wariyaasha madaxa banaan ee ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota isla markaana maanta si toos ah u tabinayay markii mudaharaadkaasi ICE lagu dalbanayay inay isaga baxaan Minneapolis iyo St. Paul isla markaana Soomaalida garab istaag loogu muujinayay markii uu socday oo si toos ah bartiisa Facebook oo dadka uu uga baahinayay isla markaana ay uga daawanayeen Liban waa kaaga mahad celinayaa waraysiga sidoo kale aad mahadsan thank you aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono oo saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo